kusoo dhawaada wararka maanta ee janalka Guuxa Media. Cabdirashiid Xidig oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu sheegay in uu fashilmay falfool xun oo loo maleegay, waxana uu sheegay in qarax la rabay in lagu qarxiyo gurigiisa la fashiliyay. qoraal uu soo dhigay barta uu Facebook ku leeyahay musharaxan kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu ku sheegay in ay fashilantay falfool xun oo ay u maleegeen shakhsiyaad xukun madax maray. waa hubaal in qaraxan lagu diyaariyay ama laga keenay guriga askariga ilaaladeyda ka mid ahaa loona soo waday guriga aan ka deganahay magaalada Kismaayo. waxa uu sheegay baaritaan la sameeyay kadib sida muuqata qaraxan la rabay in lagu qarxiyo guriga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo in aan laga soo abaabulin meel ka baxsan gudaha magaalada Kismaayo. magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda diyaar garowga doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland. magaalada Muqdisho ayaa maanta xildhibaano iyo siyaasiyiin ku kulmay waxay ku dhawaaqeen isbahaysi siyaasadeed oo ay sheegeen in ay uga qayb qaadan doonaan xisbiyada ka qaybgalaya doorashada 2020. 8 ka mid ah xisbiyadii ay diiwaan galiyeen guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay in ay midoobeen. xisbiyadan maanta midooba ayaa waxa kala hogaaminaya xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan iyo Cabdullaahi Sheekh Xasan. xildhibaan Zakariya ayaa ka sheegay goobta xisbiyadan ay ku midoobeen in ay sameeyeen isbahaysi loogu magac daray iskaashi oo ay tahay in la yareeyo xisbiyada tirada badan ee dalka ka jira isla markaana la helo tiro kooban oo ah xisbiyada markaasi dalka uu leeyahay. magaalada Hargeysa maanta waxaa gaaray wafdi ka socda dalka Djibouti halkaasi oo ay kula kulmeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Somaliland kula kulmay wafdi ka socda dalka Djibouti. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in wafdigan ay markaasi la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xiriirka soo jireenka ee walaaltinimo, daris, ganacsi iyo diblomaasiyadba ay la leeyihiin Djibouti, waxaana uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha dalka Djibouti uu xoojiyay xiriirka walaaltinimo ee Somaliland ay la leeyihiin. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ayaa maanta oo Sabti ah xukun dil ah ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka booliiska oo horey u dilay wiil bajaajla ah. Dable Cali Maxamuud Axmed oo 26 jir ah ayaa maxkamadda ciidamadu ay ku xukuntay xukun dil ah kadib markii ay ku heshay dambi ah inuu si bareer ah u dilay wiil bajaajla ah 8 bishan May isla markaana uu dhaawacay qof kale oo mootada bajaajka la socday. sidaasi waxaa maxkamadda ka sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Shuute. maxkamadda ayaa sheegtay in ay furan tahay racfaan. ciidamada ammaanka ee ku sugan baraha kontaroolka ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa dhowr jeer waxa ay toogteen dhalinyarada ka haysa mootada bajaajka waxaana marar badan la dilay dhalinyaradaasi. dad ay ku jiraan ajnabi ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in 4 qof oo 2 ka mid ah ay ajnabi yihiin ay ku dhinteen shil gaari oo shalay galinkii dambe ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. sidoo kale shilka ayaa waxa ku dhaawacmay ilaa 10 qof. 4 qof ee dhintay ayaa 2 ka mid ah waxa la sheegay inay u dhasheen dalka Bangladesh. meydadka 4 qof iyo 10 qof ee dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. dadka dhaawacmay waxa ku jira dumar kuwaas oo xaaladooda hadda ka soo hagaagaysa. muddooyinkii dambe shilalka gaadiidka ayaa ku soo badanayay deegaanada Somaliland gaar ahaan wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maanta oo Sabti ah loo caleemo saaray xilka madaxweynaha kadib markii dhawaan uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday. hogaamiyaal ka kala socda qaaradda Afrika iyo wakiilada matalaya wadamada caalamka ayaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweyne Ramaphosa oo lagu qabtay garoon ciyaareed oo ku yaala xarunta dalkaasi ee Pretoria.
hogaamiyaha xisbiga ANC ayaa ka sheegay xafladda caleemasaarkiisa inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa isla markaana uu kobcin doono dhaqaalaha dalkaasi ee sii liicaya. horaantii bishan ayaa loo doortay madaxweynaha dalka Koonfur Afrika hogaamiyaha 66 jirka ah waxaana uu helay 57.5% waana tiradii ugu yareed codod tan iyo markii xisbigan uu talada qabtay 25 sano ka hor. Mr Ramaphosa ayaa xilka kala wareegay Jacob Zuma sanadkii 2018 kadib markii uu iscasilay Zuma oo lagu eedeeyay musuqmaasuq. Mr Ramaphosa waa madaxweynihii afaraad ee si dimuqraadi ah loo doorto tan iyo sanadkii 1994. 32,000 oo qof ayaa ku sugnaa garoonka ay ka dhaxaysay caleemasaarka madaxweynaha Koonfur Afrika oo ah garoon lagu ciyaaro ciyaarta rugby-ga. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa si rasmi ah u sheegtay in 7 bisha soo socota ee June ay xilka ka degayso kadib markii ay ku guuldareysatay qorshaheedii ka bixista midowga Yurub. waxay culays kala kulmaysay xisbiyada dalka Ingiriiska oo ku jiro xisbiga ay ka tirsan tahay ee Conservative-ka. waxay sheegtay Jimcihii in ay sii hayn doonto xilka ra'iisul wasaaraha inta laga dooranayo hogaamiye cusub. Mrs May ayaa ka soo muuqatay qolka shirarka jaraa'id ee lambarka 10aad ee Downing Street-ka ee magaalada London waxaana ay tiri ima suuragalayso qorshahayga ka bixista midowga Yurub waayo waan ka tagayaa xafiiska. waliba hadalkaasi waxay jeedisay iyadoo ilmeynaysa. Mrs May ayaa noqotay haweeneydii labaad ee ra'iisul wasaare ka soo noqota dalka Ingiriiska. wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa siyaabo kala duwan uga faaloonayay maanta oo Sabti ah iscasilaada ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May. ugu dambeynna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku joogaa dalka Japan halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho 4 maalmood qaadan doonta. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe. waxay ka wada hadli doonaan labada mas'uul xiriirka soo jireenka ah ee Mareykanka iyo Japan. labada mas'uul ayaa kulmay ama ku wada hadlay telefoon in ka badan 40 jeer taasoo gabi ahaanba mid aan horey loo arag ah sida uu sheegay aqalka cad. Trump waxaa la socda mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka iyo sidoo kale ganacsato waxaana la filayaa inta uu joogo dalka Japan in uu kala hadlo madaxda dalka Japan xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalalka gobolka iyadoo Japan iyo Kuuriyada Koonfureed uu xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo. inta ayaan dhageystayaal guud ahaan ku soo gabagabeynaa wararkeena maanta oo Sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha shanaad ee sanadka 2019. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Guuxa Media waxaan idinka codsanaynaa in aad subscribe tiraahdo oo aad la socoto wararka aan halkan soo galino. waad ku mahadsantihiin la socodka wararkeena. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim.